magaaladeenan ma dadka aqoonta la ugu maal badan mise dadka aqoonta aan lahayn lidalika nabigu waa kii lahaa makhluuqaadka ilaahay ka fikra buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin ha ka fikirin ilaahay daatadiisa makhluuqa ilaahay ka fikir waa maxay ka lixaadka loo dhammaystiray eeg deedna ilaahay xasuuso ka lixaadka laga naaqusay eeg deedna ilaahay xasuuso ka cad eeg deedna ilaahay xasuuso ka madow eeg deedna ilaahay xasuuso ka faqiirka eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka xanuunsan eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka ubadka la siiyey eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka bilaa ubadka laga dhigay eeg deedna ilaahay ku xasuuso khalqigan oo dhan waxaad ka dhex arkaysaa ilaahay aayaadkiisii baad ka dhex arkaysaa ilaahay aayaadkiisii kam min albashar baa ilaahay abuuray qaar baa fuqaraaya qaar baa akhniyaaya qaar baa caafimaad lagu deeqay qaar baa xanuun lagu ibtileeyey qaar baa faqri lagu imtixaamay qaar baa awlaadii loo hagaajiyey qaar baa awlaadii laga bi'iyey qaar baa waxbarashada loo furay qaar baa waxbarashada lagu adkeeyey qaar baa islaamnimada ilaahay ku galladaystay qaarna gaalnimada ilaahay u qadaro gaalnimay ku dhimanayaan qaar caqligii baa ilaahay siiyey qaarna caqligaa ilaahay ka qaaday qaar lixaadkaa loo dhammaystiray qaarna lixaadkii baa laga naaqusay ma arkaan ma maqlaan ma hadlaan qaar baana socon aqalada u jiifa qaar baa aqoon kastay leeyihiin haddana fuqaraaya qaar baa aqoon aan lahayn haddana ilaahay ka dhiga aqniya iyo maalqabeenno magaaladeenan ma dadka aqoonta la ugu maal badan mise dadka aqoonta aan lahayn ya qaar kuwa ugu lacag badan ma jaamiciyiinta ugu lacag badan mise dadka aan jaamacadda soo dhigan halka jawaabade dadka waxba soo dhigan ba ugu dhaqaalo badan dhalinyaro ardayaan arkay oo markaa bur sheekh jaamacadayna waan dhammaynay shahaadooyinkii waan haysanaa shaqana ma hayno dhalinyaro aada u fikiraya buu ahaa wuxuu ihi cilmigaaga la eegi maayo zamankana ciddaa tahay baa la isweydiiyaa buhi marka horeysaba soomaaliya ila qabiil baa lagu halaagay markaasaan idhi dibloomkan aqoontaad baratay waa gooni arsaaqaduna gooni shaqo iskuma leh aqoonta baro lama diidan inaad wax barato inaad dhakhtar noqotaa lama diidayo inaad injineer noqotaa lama diidayo inaad maaragtaanay professor aad noqotaa lama diidayo inaad macaadinta arlada sida loola soo baxa aad noo barataa lama diidayo laakiin aqoontuna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqada marka ayaa bixiya waxbarashadaad baranaysid iyo arsaaqadaada cilaaqa kama dhexaysa ogow habeenkii ilmaha yar 120 habeen uu jiray calooshooyadii uu marxaladaha uu marayay uu nebigu sheegay 40 hore buu nebigu yidhi waa nudfax 40 dhaxana buu nebigu yidhi waa calaqa waa xinjir yaroo dhiiga 40 ku xigana buu nebigu yidhi waa waslad yaroo hiliba daana 120 markuu jiro ayaa malaga loo soo dhiibaa ruuxda oo la yidhahdaa ku afuuf habeenkaasa 4 shay ilmaha caloosha kale loo qoro 4 shay arsaaqadiisa habeenkaasa la qori buu nebigu intuu cunayo ajashiisiina habeenkaasa la qori maalintuu dhimanayo labiyo dhidig midku ahaanayna habeenkaasa la qori ahla naar iyo ahla janna midku yahayna habeenkaaba la qori buu rasuulku yidhi sal allahu alay wasallam ku salli rasuulka arsaaqadaadii habeenkaabaa la qoray intay tahayna ilaahay waa kaa qariyey intaad adduunyada ku noolaanaysa habeenkaabaa la qoray intaad jiraysana waa lagaa qariyey bal ka warrama sidee noloshu ay noqon lahayd haddii ilmo kastoo inoo dhalanaya uu noo dhalan lahaa asaga oo taariikhda uu dhimanayana halkaa ugu qoran tahay see noloshu noqon lahayd bal ka jawaaba oday baa inan ku odhan lahaa adeer dee mabruuk waan maqlay inay wiil aad ku curatee adeer waa mabruuge
laakiin 2022 bisha 22 ugu dhimanayaaba ku qoran buu maxaa la sameeyay bal ka warraba taariikhda dhimashada laga qariyay baa raxmadaba walow 100 sano kadib haddaan lagu qor lahayn aad dhimanayso oo halkaa kaaga qornaan lahayd walwali walbahaari murugba ku sii dili lahayd laakiin ilaahay waa kariim uu kaa qariyey siduu ajashaada u qariyey ayuu arsaaqadan ilaahay kugu qariyey min maalinta aad dhalatay ilaa aad dhimanaysa wixii adduunyada biyo iyo baad iyo bariis iyo hilib iyo caano iyo hawo aad ku lahayd haddii lagu siin lahaa halkee dhigan lahayd bal sheeg imse bakhaar baad u baahan lahayd ma yeelateen noloshu xarakaad noloshu waxay macaankii dhadhanka ku leedahay ajashiina waa lagaa qariyey arsaaqadiina waa lagu qariyey markaasaa weliba lagu sheego lagaa yidhi arsaaqadaadi iyo aqoontaadu iskuma xidhno sidii ninkii nebiga u yimid ee yidhi laba nin oo walaale ayay ahaayeen midna farsamo yaqaan buu ahaa midna masjidka nebigu fadhin jiray oo nebigu cilmiga ka reebi jiray calayhi salaatu wasalaam marka kii xirfadlaha ahaa ee magaalada u shaqo tegi jiray ayaa nebiga ku dacweeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dacweeyey walaalkii yaa rasuulallah de aniga unbaa soo tabcaya buu isaguna halkan masjidka unbuu fadhiyaa wuxuu nebigu ugu jawaabay lacallaka turzaqu bihi buu ka yidhi lacallaka turzaqu bihi waxaa xaqiiqo ah oo dhaba buu nebigu leeyahay in arsaaqadaba ilaahay isaga kugu siinaya fadligiisa tawakulka tala saarashada ilaahay uu tala saartay ictikaafka masjidka uu ku jiro barashada ilaahay diintiisa uu baranayo taqwada masjidka ku soo xiraysay ayaa laga yaabaa arsaaqada in ilaahay kugu fudaydinayo macnaheedu weeyaan sidaas marka aqoonta ma radinayno waan baranaynaa aqoon in wax la bartana ma diidayno laakiin waxaan u baahannahay qofka wax baranaya inuu marka horeysa u noqdo qof ilaahiisa yaqaana dhakhtar ilaahay yaqaana injineer ilaahay yaqaana taajir ilaahay yaqaana mas-uul ilaahay yaqaana faqiir ilaahay yaqaana caaqil ilaahay yaqaana ogaas ilaahay yaqaana waa inaad noqotaa qof ilaahay yaqaana